الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. ما أنت وحين كشكينا أحكام الصيام. صيامكو يصومكو حليه أحكام أدياد أفر بدن إن شاء الله تعالى. الصوم لغة هو الإمساك. صومكو هرتو حوي لغة سيدا دين على لغة إن أفكا جهيستي وحكستوا أفكا هيستي. لكن شرعا وحوي إن أفكا كهيستي وحيابه من فضلاتك وحيابه قفك كبرني صونتا إلودي دنا سيدا ضعام يا شراب يا جماع جلمدي إلا مركو واجو بريو إلا مكة قرحضو أي دعضو. وأنا واجب قفك استو إسلامه صونك واجب وبالغ عاقل وقان قاري وظاهر وقفكي معناها سيدا كبري وكله حيتكي نفاسكي وإني كظاهر تاي. لكن سنينكو هادو جنامو ليها ويناس سعوتا إساقو سوم كرا ودي أروتي بوسك قوي سنيات. قادر مقيم وقف مقرنسا أوده صونتي أوده وحنوصنين آدياد وحنوصنين إيو قف مقيمة عن سفر أهين كا لتركيز السفر مسافركو إساقو سومي كرا حدود دوننا إلهي سبحانه وتعالى بأرخصيي مسومي كرو فعدته من أيام أخرى أيامها تنبي أيو سكدب ديغانيا أو أيامها كالي أيو قليانيا. لكن هدي مقارنة سفرة ما أنت شراء أو كالي قارياشا الراعي هدو أودو إنكستو دادك بدنا باي أودان وحفي عن قفكاس إنو إسكسومو هدو نسومينه وأيامها كالي تبدكتونا إساقو جرتان oo magaranaysa waa wax oo banaan qofka sabiga uma banaana soonto oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rufi'a al-qalamu an thalatha waxa qalamkii laga kor qaaday saddex ani sabiyi hatta yabluqa qofkii sabigaha ila intuu qan gaarayo wa ani naimi hatta yastayqida wa ani al-majnuni hatta yufiq labadaas laguma laha majnuunki iyo sabigi laakiin saka dhaxa oo qofkii hurday isaga waa lagu leeyahay isagu wuu miir qaba. laakiin dhinaca kale haduu qof isagu hurda waxa laga hadlayaa qof isagu hurda oo magaranaysa hurdadiisa waxaan u soo kicin haduu tusaalahan iska soo kaco oo wuxuu doono ku hadlo de isaga magaranaysa waxba lagu malaha waxba lagu qoriyo. tusaalahan dad waxa jira hurda oo marka la soo kiciyo iyagu hurda aan is ogeyn wax kasta waa iska sameeya xitaa kuwaaso fi soomi Ramadaan markuu lagu jiro hadii intuu iska soo kaco biyo isku cabo isagu hurdadii hayso oo hurdadii si waxaan uga soo kicin qofkaas soonta ka jabmayso sababta qofkii wali uu iska hurdaa hadhow marka la weydiiyo inuu biyo cabisay markaad soo kacday saas ahayd haduu dhaho isma ogeen de waxa weeye waa qof ay ogeen weeye qofkaas soonta kama jabaso. laakiin hadii uu ogaa oo markuu soo kacay is ogaa de qofkaas waa qof ka soonti u jabiyay. soontu waxay leedahay laba rukni waa inuu niyeysto habeen kastaba waa inuu niyeysto iyo inuu ka tago waxyaabihii soonta jibinayay. labada rukni waa khasab oo culimadu way kala qaadaan niyada. qaar waxay dhahan habeen kasta waa inuu niyeystaa qaarna waxay dhahan bishii hal mar buu wada niyeysan karaa. laakiin kuwa yiri habeen kasta waa inuu niyeystaa waa isla garanaa. laakiin kuwa yiri bisha waa inuu isku niyeystaa kuwa laftirkoodu bisha markaa niyeystid habeen kastana gaarkeeda markay u soo galayso Ramadaan kasta habeen kasta waa inay niyadaas ay kula socotaa. laakiin niyadaas haday ka hadho magaranaysa niyad kuma jirto niyadaas waa inay kula socotaa sida salaada oo kale oo qofku salaada markuu galo ilaa markuu ka baxo waa inay niyadu la socotaa. laakiin markuu sujuudo haduu niyadii daaqada ka saaro oo magaranaysa niyad ahaan ka baxo waxa weeye de soonti Ramadaan salaadii uma jirto. waa saas oo kale qofka doonay inuu soomo habeen kasta markuu soo galo si gaar ah waa inay niyadii ولا صعطة محايلة وواحد عبادة وشيء عبادة وقتيجي مركو يمادو أيا لوجوله هاي إنني يستيد هبين كذا مركو يتمادو أيا لوجوله هاي. النبي صلى الله عليه وسلم حجري من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قفكي أنا كو بريسن هبينكي إن أسميو أروتي وح صيام وصامي مجرو مركا هبينكي وإنني يستاه hadii xitaa adoo og inuu soon jiro rootina aad ka soo kacday oo ay tiraado waa iska soomanahay wali niyadii xaqiiqa ma aha. laakiin habeenkii iyo xilliga suxuurta xiliyadaasba waa inaad niyeysataa in arooti asoomisid. niyatul haidi
halkan waxaa ku jira dhowr axkaam oo ah gabadha haydka laakiinse dhiigeedu kasii dhamaanayo xilliga soonku ay soo geliso ama maalmo kamid ah maalmaha soonka sidee u niyeysanaysaa horta haydkaas laba loo kala qaadaya hadii qofku uu ka dhamaanayo gabadhu ay ka dhamaanayso dhiigaas uu ka dhamaanayo marka waagu bariyo xilligii la suxurtay kadib soontu waajib noqotay xilligii soontii la niyeysan lahaa xilli la soo dhaafay haday wali ma garanaysaa inaa daahir ahayn de gabadhaasu ma garanaysaa wali niyadeedu ma saxsana ama soon laguma laha sababtoo ah xilligii la niyeysanayay soonta wali daahir maaha laakiin haydku haduu ka dhamaanayo xilligii suxurta ee soonta la niyeysanayay haduu ka dhamaado xilligaas way iska soomi kartaa sababtoo ah xilliga daahir weeye oo intii qubaysto ayay soomaysaa marka la qabto qowlka culimada dhahaya gabadhu haduu hayd ka dhamaado khasab waa inay waxa waajib ku ah inay qubaysto marka iska soo qubaysto laakiin culimada dhahaya waajib kuma aha inay qubaysto oo markuu haydkii ka dhamaado gabadhaas waa daahir marka culimada dhahaya hadii la eego qowlkoodana de waxa weeye marka ba iska niyeysto iyadoo aan qubaysin laakiin sida khilaafka uga baxdo khuruujan min al-khilaaf wa an al-khilaaf khuruujan an al-khilaaf waa in ay gabadhaas iska qubaysta xilliga hadhowtana iska ama tii ma garanaysaa uu ka dhamaanayo dhiigeedu 9 habeenimo iyo 10 habeenimo iyo 7 fiidnimo iyo taas iyadoo aba khasab habeenkaas inay niyeysto inay soonto ama way ku jirtaa dadka soomaysa marka gabadha haydka qabta sidaas ayaa loo kala jaaraya gabadhu hadii waagi u bariyo iyadoo aan wali daahir ahayn oo xilliga daahir noqotay soon laguma laha laakiin hadii ma garanaysaa ka hor intaan la xiran hadii uu ka dhamaado dhiigu de waxa weeye soontii waa lagu leeyahay soonta waxa buriya 6 buriya waxyaabihii mufadaraadka waxyaabihii laga mamnuucay sida sharaabkii iyo waxyaalihii caloosha la gelin lahaa adigu sida sharaabkii iyo dacaamkii iyo qofkii diinta inuu ka baxo iyo haydkii iyo nifaaskii dhiigii dhalmada iyo wali iyo iqma doorsoonaan qofku inuu qalbigiisu tago maalinta intiisa badan macnaha maalinta badanaaba maalinta inteeda badan waxa weeye ilaa adigu duhurkii wixii ka sheeya wixii duhurkii ka sheegay sida madhab Imaam Shaafici uu qabo duhurkii wixii ka sheeya ilaa iyo labada iyo qofku haduu soomir doomsoomo isagoo arooti oo dhan suxsana hadii uu ilaa ya labada iyo saddexda iyo meelaha haduu soo kaco qofkaas soonkiisi wali ma garanaysaa muugudan oo maalinta waa inuu qaleeyaa laakiinse 12 iyo 11 aroornimo iyo meelahaas qofkii haduu suxuuntaankii ka soo kaco de qofkaas soonkiisi uu jira oo uu si soconaya الشيخ الكبير والعجوز labadaas qof ma garanaysaa qofka haduu iska weynaado sida caanka ay dadku yaqaan haduu iska weynaado islaantii weyneed qofkii ma garanaysaa xanuunka aad u fara badan qabay qofkii cudurdaaradaas ay u diidaan oo cudurdaar ma garanaysaa aanan qofku ka soo noqon karin sida xanuunkii iska wili qofkii haynay xanuunka qofka wiligii hay sida xanuunadaas oo kale qofku wuxuu bixinayaa fidyo wax la dhaho oo khasab maaha in uu soomo maadaama uu awoodin الصوم في السفر صومك سفرك واتينا هذا الكسو هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي وحدهن سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سفر لقلني فمنا من سام ومنا من فضر وحنا نجمدها من نجمد أصومي قار نجمد أهنا ويسكع فرين مينا سومين فلم يعب الصائم على المفتري كي صومنا مو عيبين كي أنا صومنين أفرنا معناها كي صومنا كمو عنانا ومو عيبين إنو أفرو كي أفرنانا كمو عنانا كي صومنا ومو دهين محا أسومسا ما يسكديس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكو رخصيي ويكو بناتهاي إن هذا سومني وضع المسافر على المفتر يجوز جدا تنوي حوي ومسألة كلا وقفكي مسافر كا أول بقى صومنين هدو سفر كي مادو أول بقى صومنين هدو حاس كيسي أقل موضوع وح كفارة يا واحد ذنبي كملها وحاكل الله من قفكي صوم كيسي وح كلا كشبي
qofkii soonkiisu wax kale ku jabay ayaa la mid ah oo qofkii soonkiisu ku jabay cunto uu cunay iyo waxyaabahaas hadduu xaaskiisa u galmoodo isaga kafaara laguma laha laakiinse qofkii soonkiisu ku jabay jimaac iyo galmo iyo xaaskiisa inuu la galmoodo qofkaas isaga kafaara laga doonayaa oo waxa la doonayaa inuu kafaaro guto waxyaalaha kale ee culimadu dhaheen way kafaaray la imanayaan waxa weeye gabadha uurka leh iyo gabadha naaska nuujinaysa ayaa culimada qaar ayaa waxay dhaheen gabadhaas waxa la doonayaa in ay kafaara la yimaadaan marka ay qaleenayaan taasuna wax ma garanaysa oo waliba xiliyada qaar ah taasuna wax khasaba ma aha nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ahadiistiisa kama sugna kafaaradaas laakiinse waxa ka sugan qofkii inuu soo qaleeyo oo kaliya waxaa kaloo kamid ah soonta maxay waajib ku tahay oo sidee xilligee la soomayaa oo ma garanaysaa maxay qofku markay soonta soo gasho oo lagu dhahayo soontii baa ku soo gashay waa ina soontaa waxa weeye laba wax marka la helo waa markii bishii la arko kow ama marka ay shacbaan ay ku dhamaato soddon oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la tasuumu hatta tarawu al-hilala ha soomina ila aad bisha aragtaan aw tukmilu al-iddata ama aad tirada dhamaystirtaan ولا تفطروا حتى تروا الهلال ها أفرنا إلى آد بش أركتان أو تكملوا العدة 30 أما آد عدة أدميسترتان 30 صدن أكو دميسترتان المهم أدوغو أما وإن بشي شوال أي كدمات أي دماتو أما وإن بشي لأركو لبداس أي واجب كتحي قفكي لبداس سوق علينا وحلدونا إنو صومو اختلاف المضالي لدهو ayaa jira oo ikhtilaaf madali waxa weeye wadamada ay qoraxdu isku xili u soo baxday isku xili uga dhacday sida Afrika kala ah sida wadamada isku dhow wadamadaas hadii magaalo laga arko bisha magaalada kaana waa inay soontaa sababta waa isku xukun magaalada hadii la arkay waa la arkay magaalada kalena waxa la doonayaa inay soonto bal iska badaaye magaalada la soomi weyda hadii ama magaalada markay bishu saa u soo baxdo ay soomi weydo ay maalinta ka tagto oo ay ogaato dib loo ogaado in ma garanaysaa bishii la arkay si yaqiin ah oo dhab ah loo ogaado magaalada waxa ku waajib ah in ay maalinta iida ila maalin bay ka tageen maalinta iida ay iidaan maalinta kalena ay soo qalayaan laakiin sadii maayaan anagu isku maalin ba soo soomnay de maalinteeda nooma dhameystirna waxaan dhameystirnaa sodonkeega khasam ma aha inaad dhameystirtid ina maalintaas magaranaysa atraad anagu ma si wadana rabadayna tayada maaha sababtoo ah waxay ku soo beegmaysaa maalintii dadku iidayeen maalinta dadku iidayeenna iyadoo de lama soomo waa maalin iida maadaama ay sida tahay adigu maadaama maalinta ka tagtay oo magaranaysa nasiibku kugu beegi waayay ilaa khasab maaha ina markasta waafaqday maalinta dibdigo oo dadka iidayay iskala iid oo waxa sameynaysa magaaladaas soo qalayso maalintaas